kuwaasina waa ogaadeen kuwanina waa majeerteen waa kablalax waxaan u arkaa dad u shaqeeya ajnabi oo aan Soomaaliba danaheeda ka shaqeeyna danaha dawladaha Soomaaliya daneeyay ka shaqeeyaan ma doonayna gacan shisheeyo oo dalkeena ku dhex jirto Puntland imaaraad inay ku xiran tahan ka warqabna kuwaana inay xagga ku xiran yihiin baan ka warqabna hadba dhinac baa looga yeertaa iyadoo la filayay inay qabsoonto doorashada xubnaha labada aqal isla markaana heshiis ku aadan hanaanka doorashada ay ku kala saxiixdeen Muqdisho maamul goboleedyada dalka gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxaa jiray dib u dhac iyo in maamulada Jubbaland iyo Puntland ay ka biyo diideen geedi socodka doorashooyinka Soomaalida haddaba si aan u ogaano aragtida shacabka Muqdisho ayaan mikrofoonka Som News la dhex qaadnay qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho waxaan ka soo jeedaa gobolka Bari ee caasimadda Boosaaso Puntland waxaan soo dhaweynayaa aragtida uu ka hadlayo ninka la yiraahdo Siciid Cabdilaahi Deni ma uu xukumo Puntland shacabku waa muwaadin Soomaaliyeed horumar iyo higtarka caalamka Soomaaliya la rabaa israac baa la rabaa mawduuc Soomaaliyeed oo midaysan baa la rabaa hal shakhsi uma qoqobnaanayso Soomaaliya waa midow Soomaaliya waxa dhalinyarada dan u ah bulshada dan u ah horumarka dan u ah caalamka dan u ah israac iyo midowga Soomaaliya waa Deni wuxuu ka maaran la yahay dadkiisa ayuu gaajo u dilay dekada wixii boqolkiiba 5 kaash hal la geeyo 95 doolarna hal la geeyo ha ka taliya midnimada dalkiisa Axmed Madoobe markaan ka hadlo Axmed Madoobe wuxuu daba joogaa Kiya dadku waa fasaxay waa midow Soomaaliya hargeysa waxa laga dooranaya goliga shacabkeeda Muqdisho ku dhayahay wax dad ay xil saaran yihiin iyo waxay hayaan midna ma jiro golaha isimada wax garadka aqoon-yahaniinta bulshada Puntland iyo Jubbaland waxaan leenahay horumarka Soomaaliya muwaadin oo ahad wassalaamu calaykum waraxmatullahi Puntland iyo Jubbaland shacab ahaan waa dad Soomaaliyeed waa dad Soomaali jecel waa dad jecel inay ka qayb qaataan horumarka Soomaaliya dawladiskeeda laakiin waxa ku dhagan niman waxa weeye dan leh oo aan danta Soomaaliya rabin oo niman soo qufusheen anigu waxaan ka soo jeedaa labada meel baan ka soo jeedaa sheegaysaa waxaan leeyahay dadku waxay leeyihiin dhaqan ka xoog badan madaxweyne kasta Puntland baa leh Jubbaland baa leh in dawladdu si degdeg loo tashato iyo shacabku oo hadday aqbali waayaan 4 saac gudaheed shacabku ismadu ay soo gudbiyaan guddigii iyo xildhibaanadii yaan u aaminsanaa shacabka Soomaaliyeed waa xor laakiin aan baa qufulan baa inay qufulaan wax dhici karana ma ahan waxaan u arkaa dad u shaqeeya ajnabi oo aan Soomaaliba danaheeda ka shaqeeyna danaha dawladaha Soomaaliya daneeyay ka shaqeeyaan dantaas oo ah in Soomaaliya daciif ahaato oo la iska fakto oo ay baabacsanaato dalkeeda oo hawadiisuna fiican tahay khayraadkiisuna badan yahay ee dadkeeduna halmaansan yahayna ay ka danaystaan dawladaha raba iyay u shaqeeyaan nimankaas fiirahdi nin meelu ka cadahay meelu ka madow kuwa dardaaran male inna lalaalatun weeye kuwa jidka ka lumay weeye waxa weeye labadooduna isku mid maaha Axmed Madoobe wuxuu la joogaaba ma jiro ee idaacadaha buunbuuniya iyo dadka Soomaaliya mucaaradka ku Axmed Madoobe 6 degmo weeye Jubbaland 16 degmo 2 degmo buu asagu joogaa waa Afmadow iyo Kismaayo 3 waxaa joog waana garabka Kenya asagu iyo Imaaraad garabka Soomaaliya waxay haystaan 14 kale 2 degmo baa garabka ajnabiga u shaqeeya oo Kenya raacsan iyo xukuma doorashada way qabanayaan salaadiintii iyo dadkii maaragtay awlal amriga ahaa oo doorashadu ha qabteen oo qabiilooyinka wakiilka ka ah kulligood Muqdisho joogaan ama gaday joogaan hal qof oo Kismaayo joogaa ma jiro qof uu dilay iyo qof cararay iyo qof uu tilxiilay way kulligood doorashada waxay rabaan inay ku qabsadaan gido intaas oo dhan marka ninkaasu waxa uu ka baaqday inuu doorasho qabtaba maaha in la weydiiyana maaha ayga waxa la yiraahdaa Aada Warsamo Jaamac waxaan nin reer qoyay baan ahay heesba waxay ahayd cudurka ka gala fartaha hadii laga gubo dameer dawada lama gaadhay dawada hadii meel aanay jirin laga raadiyo dhibteeda ay leedahay waa garataan malanaya Jubbaland iyo Puntland aad sheegaysaa waa laba beelood oo walaala la runba loo baahay xaqiiqada loo baahay kuwaasina waa ogaadeen kuwanina waa majeerteen waa kablalax
wax kale ku jira meesha dadkii dhulkan iska lahaa Jubbaland la yiraahdo waa dulmay sida dadka waalka loo ka tarbiisha loogu dul socdo nin ka soo duulay bahalkii meesha la dhagax buur ka soo duulay baa haysta Kismaayo oo aan shaqo ku lahayn oo 1942 iibsaday dhulka intiisii xabashi ka iibsaday oo yiri gaali ma dhaamay way ka galbeed ayaa ku indha cadeynaya Kismaayo shaqo kuma laha Axmed Madow Kismaayo shaqo kuma laha dulmi buu ku joogay waxaan u arkaa diidmada ay diidan yihiin mid dal shisheeye dad shisheeya ay ka dambeeyaan oo ayaga ayna ahayn